He's got the touch. He's beaten the goalkeeper, and Manchester United are level. And it's the magaciisa oo dhammaystiran waa Ryan Joseph Giggs waxa uu dhashay 29 November 1973 waxa uu ku dhashay isbitaalka Davis Hospital ee ku yaala Cardiff dhirarkiisu waa 1.79 mitir hadda daadiisu waa 46 jir waxa uu xiran jiray nambarka 11aad waxa uu caan ku ahaa u dheelista kooxda weyn ee Manchester United yaraantiisii waxa uu soo dheelay yaryarka ama daayarada kooxda Man City intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1987 sidoo kale waxa uu soo dheelay daayarada Manchester United 1987 ilaa 1990 waxa uu ku soo caan baxay mid ka mid ah kooxaha ugu caansan kuwa dheela kubadda cagta waa Manchester United camaaliqada cariga Ingiriiska Manchester United ayuu u dheelay intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2014 waxa uu saftay 672 kulan isagoo u dhaliyay 114 gool sidoo kale xulka Wales ayuu u saftay intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2007 waxa uu Wales u saftay 64 kulan isagoo u dhaliyay 12 gool guud ahaan Giggs ayaa saftay dhammaan waayihiisa kubadda cagta 963 kulan waxa uu dhaliyay 168 gool waxa lagu tiriyaa haliyay ay leedahay kooxda Red Devils ee wadanka Britain waxa uu waayihiisa ku guuleystay 34 koob waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah weeraryahanadii ugu khatarta badnaa ee Britain ka dheelay gaar ahaan horyaalka Ingiriiska maadaama uu ku qalabaysnaa farsamo aqoon xawaaro sare iyo xirfad sare uu kaga hortagi jiray daafacyada markaas ay ishayaan ciyaartoy caan ah ayaa wax ka yiraahdeen Ryan Giggs Alessandro Del Piero ayaa yiri laba laacib ayaa iga ooyiyay anigoo kubadda cagta daawanaya waa Giggs iyo Maradona Zinedine Zidane laacibkii Faransiiska Real Madrid iyo Juventus ayaa yiri dhammaan waxaan joognay Juventus waxaan isku raacnay in Manchester United ay tahay kooxda aanu ka cabsanayno inaanu wajahno Champions League waana sababta Ryan Giggs Martin Coyne difaacii hore Arsenal ayaa yiri waa arrin naadir ah in aad hal koox u dheesho adigoo leh sida hibada Ryan Giggs Wayne Rooney ayaa yiri wala yaab in aad ka garab ciyaarto Ryan Giggs oo aad hesho waliba baasaskiisa Ryan Giggs ayaa kula guuleystay Manchester United 34 koob 13 koob oo Premier League Ingiriiska ah iyo sidoo kale 9 koob oo Community Shield ah FA Cup wuxuu ku guuleystay 4 jeer League Cup wuxuu ku guuleystay 3 jeer Champions League wuxuu ku guuleystay 2 jeer UEFA Super Cup wuxuu ku guuleystay 1 jeer Intercontinental Cup-na 1 jeer Club World Cup-na 1 jeer waxa uu si ku meel gaar ah u noqday maamulihii Manchester United haddana waa macalinka xulka kubadda cagta ee Wales